Bismillah ardayda qiimaha leh kusoo dhawaada janaalka waxbarashada Ibre Solution. Hadduu Allah awoodi leh raalka noqdo waxaa isla xalineynaa imtixaanka maadada Soomaaliga ee sanadkii ugu dambeeyay qaatay wasaaradda waxbarashada. Weydiimaha oo markaas ka warceli doonta qaybta koowaad waa gabageli xarafka ka horeeya warcelinta. Su-aasha koowaad waxay ku leedahay miyigu. Ereyga miyi micnihiisu waa ardaygay warcelintu waxay noqonaysaa baadiye. Xarafka warcelinta ka horeysana waa xarafka ta. Waxaa gabagalinay marka xarafka ta aa gabagalinay. Su-aasha labaad ereyga gurbood micnihiisu waa waxaa ku soo marnay sheekada ku soo marnay sheekada bilowgeeda waxaan u qornaa ninka waxyaabaha oo lahaa waxa uu lahaa xoolo ka kooban ishin iyo ari. Ishintu waxaa la isku dhahaa lo'da iyo geelka. Sidoo kale waxaa la nolol barwaaqo ah ayuu ku noolaa kasiin wacan oo cunto fiican iyo gurbood ama caruur ayuu haystay. Gurbood marka waxaa loola jeedaa caruur aa loola jeedaa. Ereyga gurbood micnihiisu waa jawaab saxda arday waxay noqonaysaa warcelinta saxda waxay noqonaysaa caruur. Waxaa gabagalinayna marka warcelinta xarafka ka horeeya oo ba ah ba aa gabagalinay. Ereyga doonyo lidkiisu waa waxaa kasoo horjeedo doonyo dad ayaa kasoo horjeedo. Ereyga dad aa kasoo horjeedo waxaa gabagalinay marka xarafka ta aa gabagalinay. Ereyga ishin micnihiisu waa ereyga ishin waxaa la isku yiraahdaa lo iyo geel. Waa xarafka xa aa gabagalinay. Ereyga gasiin micnihiisu waa arday jawaab sax waxay noqonaysaa waa cunto. Xarafka ja aa gabagalinay. Intaasna sheeko leh lagu soo maray. Ereyga faras magaale micnihiisu waa magaalada bartamaheeda. Waxaa gabagalinay xarafka ba aa gabagalinay. Su-aasha toddobaad ereyga ashqaraar micnihiisu waa waxaa gabagalinaysaa yaab. Waa xarafka xa aa gabagalinay. Ereyga dugaag micnihiisu waa arday waxaa gabagalinaysaa xarafka ba waa bahal. Ninka reer miyiga ah waxa uu ku noolaa nolol waxaa gabagalinaysaa xarafka ta barwaaqo ah. Ninkii reer miyiga ah waxa uu magaalada u iib keenay. Waxaa gabagalinaysaa xarafka ba oo ah jar. Ka warceli weydiimaha soo socda. Weydiimahana iyaguna warcelintooda waxaad ka helaysaa ardayahow sheekada. Maxaa ay ahayd sababta ninka reer miyiga ah u iib geeyay ariga? Ardayda weydiintaas warcelinteedu waxay noqonaysaa
waxaa kasla soo baxaynaa sheekada ninka reer miyiga ahaa sababta uu u iibgeeyey ariga waxay ahayd waxaa kana maalin magaalada kamid ayuu soo iibgeeyey ari jar ah si uu ugu muraadsado ama ugu danaysto. Jawaabtu maxay noqonaya marka? Si uu ugu muraadsado ama ugu danaysto. Marka jawaab qaabkaas ah oo la soo baxay sheekada ka heli dhamaantood. Dhul noocee ah ayuu deganaa ninkii reer miyiga ahaa? Ninkii reer miyiga ahaa wuxuu deganaa dhul ramaas ah iyo biyo leh oo carasan ah oo deganaa. Maxaa uu la yaabay ninkii reer miyiga ahaa markii uu magaalada yimid? Iyaduna celcelinta waxaad ka helaysaa sheekada. Waxa uu la yaabay fooqyada dhaadheer, laamiyada baabuurta, iyo waxyaabihii uu la yaabay waxaa ka mid ahaa nin taraafik ah oo wadada dhex taagan. Maxaa uu yiri ninkii reer miyiga ahaa markii uu la yaabay ninkii taraafikada ah? Wuxuu dhahay rag waa kala hawl. Maxaa ay ku dhisan tahay magaalo sida uu u arko ninka reer miyiga ahaa? Magaalo waxa ay ku dhisan celcelintu waxay noqonaysaa magaalo waxa ay ku dhisan tahay waxa miyiga yaala. Haddaan usoo gudubno qaybta xigta, qaybta labaad, isku beeg ereyga iyo macnahooda. Roobka aroorta da'a. Roobka aroorta da'a waxaa la dhahaa mayay. Waxaa sameynay marka mayay horteeda waxaa ku qoreysaa number 1 oo ku qorey. Dadku wax garadka ah oo bulshada hogaamiya. Waxaa loo yaqaanaa guurti guurti horteeda oo meeshan banaan waxaa ku qoreysaa number 2 ku qorey. Biyaha soo rogmada ee roobka ah waxaa loo yaqaanaa daad. Neefta qofka aad u orday ee daalay waxaa loo yaqaanaa qofka aad u orday ee daal naftiisa xuurto Allah. Waa qof aqoon dheeraad ah leh oo caalim ah buuni Allah. Qaybta saddexaad naxwi. Isu beeg erayada isu lidka ah 10 dhibcood saaran. Geedi waxaa ku aadan arday waxaa ka soo horjeeda oo lid ku ah nagaadi. Aftahan waxaa ka soo horjeeda arday oo lid ku ah afgarooc. Dambeed waxaa ka soo horjeeda horaad. Kax waxaa ka soo horjeeda jiq. Nirig waxaa ka soo horjeeda qurbac. Wadarey erayadan soo socda waxaa saaran 10 dhibcood. Libaax wadarey waxaa lehaysaa libaaxyo. God wadarey godad. Seef wadarey seefaf. Oday wadarey odayaal. Wan wadarey wanan. Ku dar erayadan qodobka ku habboon waxaa saaran 10 dhibcood. Baabuur qodob ku dar waxaa dhahaysaa baabuurta. Sabuurad qodobka ku habboon ku dar sabuurada. Loox qodobka ku habboon ku dar looxa. Koob qodobka ku habboon ku dar koobka. Far qodobka ku habboon ku dar farta. Qaybta afraad suugaan. Kabar celi weydiimaha soo socda waxaa saaran 12 dhibcood. Maxaa ay ku kala duwan yihiin murti iyo mahmaah? Waa maxay farqiga u dhaxeeya ereyga murti iyo ereyga mahmaah? Arday celcelintu waxay noqonaysaa mahmaahdu waa hadal murtiyeed ka dhalata waayo aragnimo ama dhacdo qof soo martay. Mar kale aan ku celiyo
Mahmaah waxaa la dhahaa waa hadal murtiyeed ka dhalata waayo aragnimo ama dhacdo qof soo martay. Murtina waxaa la dhahaa waa hadal kooban oo xeel dheer waxayna u dhowdahay mahmaahda. Murti waxaa la dhahaa hadal kooban oo xeel dheer waxa ayna u dhowdahay mahmaahda. Weydiinta labaad, u kala saar tuducyadan hoojis iyo hooris. Allahayow casiis baa tihiyo caadilkii jira. Waxaa u kala saaraynaa gabaygaani meeriska waxaa u kala saaraynaa horaad iyo dambeed ama hoojis iyo hooris. Allahayow casiis baa tihiyo intaas waxaa ku jirto hakadaa ku jirto waa hoojis ama horaad. Caadilkii jira intaasna iyadana waxaa waaye waa hooris ama dambeed. Si kooban soo koob aragtida ay xambaarsan yihiin tuducyada soo socda. Dadka waa ugu guweynahay guun soo jiraan ay nuux iyo gadaashii duufaanka guurkii baday jeeday gebiyadu. Baday jeeday gebiyada dhulkii giigsanaan jiray meeshuu ku kala go'ay gardafooy hal agteediyo weli goobti baanaal. Arday haddii aan soo koobno aragtida uu xambaarsan yahay tuducaan hadda aan akhrina waxaa waaye tuducaan waxa uu ka hadlayaa da'weynida dadka Soomaaliyeed iyo goobta markaasi dadka Soomaaliya ay ku nool yihiin. Abwaanka Calaashan wuxuu tilmaamayaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad markaasi oo horay u jiray oo aan ahayn dad markaasi xilli dambe markaasi oo yimid inaysan ahayn buu tilmaamayaa. Marka waxaa kusoo koobanaysaa adee waxa uu warcelintaada waxay noqonaysaa tuducyadan waxa ay tilmaamayaan ama meerisyadan waxa ay tilmaamayaan da'weynida dadka Soomaaliyeed iyo goobta ay ku taal. Saas oo kusoo koobanay falanqay tuducyadan ujeedada ay xambaarsan yihiin. Falanqay tuducyadan ujeedada ay xambaarsan yihiin. Daaraha shabo iyo xamar kolkaan dayr isu keeno qaar kalaan ku soo dari lahaa oo dirkooda ahi. Dowlad weyn ha noqotaan lahaa waaye dabadeede. Intaa iyaduna waxaa laga rabaa inaad soo koobtid ujeedada markaasi loola jeedo meerisyadan. Arday warcelintu waxay noqonaysaa meerisyadan waxa ay tilmaamayaan muhiimadu ay leedahay mideynta ummadda Soomaaliyeed si ay u noqdaan dowlad weyn. Waxaan kusoo koobaynaa marka intaas oo kusoo koobaynaa ujeedada. Qaybta shanaad ka warceli weydiimaha soo socda 8 dhibcood saaran. Kuma ayaa suugaantan ku jiri tuducyada soo socda. Dumaal xumi walaalkaa dhintay kugu diraysaaye ka darto hadday dibi dhashiyo mayd daligya leh. Doohdoh waxaa lagu dayaa awr hadduu dida. Suugaantaas waxaa iska leh oo curiyay arday abwaanka lagu magacaabo Maxamed Cali Kaariye Allah u naxariistay. Si kooban u qeex xiriiriye. Xiriiriye maxaa la dhahaa? Xiriiriye waa qayb ka mid ah qaybaha hadalka naxwaha. Waxa uu isku xiraa ereyga oraahda iyo weeraha. Intaas aan kusoo koobi karnaa. Maxaa loola jeedaa ereyga siig?
Ereyga siig ardey waxaa loola jeedaa siig waxaa la dhahaa xayawaan baciidka u eg kana yar aadna u dheereeya lehna geesa dhaadheer. Kuma ayaa curiyay riwaayadda Shabeelnaagood. Shabeelnaagood ardey waxaa curiyay abwaanka lagu magacaabo Xasan Sheekh Muumin. Qaybta lixaad waa curis ardey waxaan filayaa qiimaha hooyada iyo ahmiyadda iskaashiga. Curiskaas waa iska fudud yihiin. Waxaan filayaa inaad fahamteen oo wax badan aad ka faa'iidi doontaan insha Allah. Mahadsanidin.